السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليك سر وهذا channel كسربيان ما أنت وحن إن بدنا عمتي إن لقب سنة لكن كنت وين ساعة وين كسر أركتين هاي بلا إسلا أركنا ما شاء الله تبارك الله هذه تنقرح بدن هذه عجبتي أيام ما أنت وحقي كان يا كلت هي يا كان قلبي حاجة ما شاء الله أي كان إن الله الشيء ده هذه تانو كان وحا أم فلاور إيا ما شاء الله تبارك الله هذه وما ستاليه وما ذعلنا يا إن بدن ما شاء الله ما شاء الله waxaana kasoo baxay quruxda badan ee carafta badan leh yaa waxaasaa kasoo baxay maasha allah maasha allah aada umaasantaa leeyahay hadiyadu waa fiican tahay in hadiyada la isa siiyo ama gift la isa siiyo surprise la isaga dhigo waxaadan ogeyn wax yar ama wax weyn ha ahaadaan waxay doonaanba marka hadiyada aada u qiimo badan tahay waxay tahay ha ahaato baakadii riisaan dhigay kadibna laba warqadood ayaa iga soo baxay labada warqadood dabcan qoraal ayaa iigu qoran yaa qoraal ayaa iigu qoran qoraalo yariis ayaa ku qoran marka waa kaasa ma idinla sheer galeen qoraal ku qoran khaas ayuu ii yahay macaankeyga ayaa ii keenay aada u mahadsan yahay kadibna baakadaasaan soo qabtay baakad kale ku xigtay bal wixii meeshaan ku jiro dhan waa kasoo bixinaynaa baakada yariis waa inagu soo baxbaxaaya ma garanayno wax ku jira baakad xoogaa ka weyn kuwaan ayaa mataqaanaa taabtay kadib waa kasoo bixinaynaa haddii ilaahay yiraahdo waatana okay baakadaanaa kasoo bixiyey maasha allah tabaarakallah waa gifti aada qurux badan kolleyba warqad yariisaa dul saaran meeshay ka timidha baakad kalaa kusii dhex jirta haye aada iyo aada hadiyada qiimo badan u leedahay qalbiyada ayay isku soo jiidaa waraaqa yaroo kalea ku dhex jirjira yaa waraaqa ayaa ku jira aada ayuu xaajiga u mahadsan yahay boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay kole waa u mahad celiyey mahad mataqaanaa marka waxaa waaye surprise-ka iyo waxyaabaha aadan ogeyn oo lagu keeno yaa aaday u mataqaanaa ay u fiican tahay waqtiyada qaar marka maasha allah tabaarakallah hadda waxaa bilaabeynaa inaan furno baakadan korkeeda gool ayaa ku qoran baakadaa korkeeda gool ayaa ku qoran saa hadee arki kartiin kolley calaamada magacaas waa meeshay ka timid iyo waxa ka hooseeya gool waaye si fiican kole looma arko meesha leydka ayaa mataqaana daciif igu iga raali ahaada bismillaah maasha allah tabaarakallah warqadaa yartaa garaamka iyo waxa uu yahay waxa ayaa ku qoran waa dhaga yaryariisa oo maxaa la dhahay gurbajooga oo cad waa dahabka cad marka dahabka soomaalideena dahab kale waxaa naqaanaa umaleynaa inta taqaana ma aqaan laakiin ani hore ma u aqoon waa maqli jiray mana xiran dahab cad marka waa kanaahe aada u qurux badan yahay maasha allah tabaarakallah waa dahab cad weeyaan okay waa dhaga yaryar oo mataqaanaa gurbajooga runtii way qurux badan yihiin laakiin si wanaag leydkayga aan beesha ku duubayo aada daciif u yahay marka iga raali ahaada xumalayaa si fiican inaan waxyaabaha qaarkood loo arkeynin anyway ana afka inanka sheegaya laakiin waa kaasaa halkaa dhaga ayaa ku jiray kolley meeshaana dhagii wixii raacsanaa ubaa kasoo baxaya isfilaa maadaama wixii aan u furna u horeeyay ay dhaga nagu noqdeen oo dahabka cad ah qofkaab iska fiican tahay mataqaanaa dahabyada noocyadiisa kale in la kala haysto waaw mid kasta warqadiisa yar baa ku jirta oo turjumaysa garaamka uu yahay kan waa faraanti yariisa waa maasha allah tabaarakallah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah hada lasoo badiyo maasha allah maasha allah hadiyada aada iyo aada mataqaana u qurux badan tahay runtii hadiyaduna waa fiican yihiin kolley waxaa umaleynayaa waa anyway waa sad isleh kolley saan filaya dabcan dhigiyo faraantigii ayaan dhignay gacan baa ka maqneyd oon video ku jirin laakiin waxay la socotay gacan yariisa ayaa iyadana la socotay waa sad yaroo kubuleeda oo gurgujooga oo dahabka cad ah maasha allah tabaarakallah waa kaasaa waa siliskii ama katiinadii oo koorihiisa oo mataqaanaa wadnahaas yahay ama laafkaas yahay maasha allah tabaarakallah afka u horeysa wax yaraa diamond moodada ayaa uga dhex jira aada iyo aada u mahadsantahay xaajigeyga qaaliga ah maasha allah tabaarakallah kanaa fureynaa marka kanaa fureynaa kana wixii kasoo baxa waa arkeynaa bismillahi raxmaan raxiim maasha allah maanta waxaa jeclaystay giftigan ama surprise-kan quruxda badan markaan furaayo akhyaarteeda la qaybsanaya ayaan dhahay intaana furin ka hor fideoan duuba kadibna markaas isla arkeynaa asxaabteyda maadaama youtube leeyahay
waxaan rabaa inaan dhaha asxaabteeda cuntaan ku wareeriyey bal inaa maanta aan ka duwo marka maasha allah tabaaraka allah kulley magaca si fiican ma loo arko saa ini sheegay laydka ayaa igu daciif ah waana waqti habeen ah waqtigaani marka waxaa kasoo baxay waa kaasa waa barafuun iyo kareemkiisii aad iyo aad maasha allah tabaaraka allah maasha allah waa barafuun qaaliya iyo maxaa la dhahaye kareemkiisii oo iswato maasha allah waa cajiib maasha allah haye qoraalkan yarka ah oo english ku qoran ayaa mataqaanaa u dambeeyey oo kasoo baxay tuwaleedka ama miiska ayaa mataqaanaa saan u saaranaysaa waxa ku qoran waa english wife ayaa kulley si fiican looma arko wife xaas ayaa ku qoran maasha allah tabaaraka allah geeraar iyo waxaa ku qoran oo english ah maasha allah maasha allah maasha allah akhyaarteeda sharafta leh giftigan ama sabrayskan yaa qiimaha leh agteeda aada iyo aada ugu weyn aadna qaali ugu ayaa mataqaanaa maanta la ii keenay aada ugu mahad celinaya xaajigayga ii keenay ilaahay kheyr badan ha siiyo yaa hadiyadahana waxaa waaye aada iyo aada u fiican yihiin markii muddo la joogaba mataqaanaa xaajigaaga ama xaajiyadaada aa kaga farxasatid hadiyad ayna ogeyn filanaynina una sheegin yaa adigu aa la jeclaatay nooca dantaba ha ula jeclaatay qaabka rabdud ha ula jeclow laakiin marmarka qaarkood mataqaanaaye in hadiyad ama ha yaraato ama ha weynaato in laysku keeno oo mataqaanaa wax laysku hadiyeeyo aada u fiican tahay runtii ilmaha u hadiyeyn kartaa xaajiga u hadiyeyn kartaa waxayna ogeyn oo sabraysa wax yar haday tahay xitaa oo lagu keeno waxaas waxaa waaye wax aada iyo aada u qiimo badan akhaartee sharafta aada u mahadsantahay maanta hadiyadaan aan idinla qaybsanayo please channelka cusubtaa naga ilaaba subscribe tirada like sharekii commentiga dhankiina waa assalaamu calaykum